Asxaabta assalaamu calaykum meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa Champion Somali Sports kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha Real Madrid oo markeedii 14aad ku guuleystay tartanka Championka iyo faankii Maxamed Salah oo oohin ku dambeeyay iyo dhacdooyinkii laga diiwaangeliyay kulankii xalay imse kooxood ayaa haysta koobka asalka ah ee Championka oo aan dib u celin goorma ayaa kooxda loo ogolaaday inay haysto koobka asalka ee Championka waxa kale oo aynu eegi doonaa sababtii loo diiday goolkii Karim Benzema sidoo kale waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga intaynaan bilaabin fadlan subscribe noo saar siina share gareysa asxaabta gaaro kooxda Real Madrid ayaa hanatay tartanka Championka markeedii 14aad kadib markii ay gool iyo ku garaaceen Liverpool kula inta badan ciyaartii maamulisay kooxda Tobar Jurgen Real Madrid ayaa sii dheeraystay tirada koobka Championka ee haysato waxaana la wajibaar ka badan tahay kooxda ku soo xigtay AC Milan halka Bayern Munich iyo Liverpool ay min 6 jeer haystaan koobkan ciyaartan inteeda badan ay maamulisay Liverpool ayaa waxa uu cadradhiyay goolhayo Thibaut Courtois oo ah haliyay ku suntanaa guusha Real Madrid isagoo in ka badan 10 kubadood oo halis ahaa ka badbaadiyay ciyaartoyda Liverpool kuwaasoo inta ugu badan ku tuuray Maxamed Salah gool madi ah oo bilowga qaybta labaad uu dhaliyay xiddiga reer Brazil ee Vinicius Junior ayaa Real Madrid ku hogaamiyay guushan weyn ee taariikhiga ah iyadoo noqotay naadiga kooxii ugu waaweynaa xilli ciyaareedkan Karbaashi Maxamed Salah oo ah xiddiga aadka ugu sii anjabiyay Real Madrid isla markaana ku riyoonay inuu ka aargoosto maadaama finalkii 2018 ay Los Blancos ku garaacday kooxdiisa isla markaana Ramos garabka ka jabiyay ayaa waxa uu khasaaray fursadihii ugu badnaa kooxdiisa kubaddu dhinaca midig ka keenay xiddiga reer Uruguay ee Valverde oo weerarayay difaacyada Liverpool ayaa waxa uu daqiiqadii 9 meel cidla ah ka helay Vinicius Junior oo dhammaystiray kubaddaasi waxaana goolkaasi noqday midkii guusha u horseeday Los Blancos Vinicius Junior iyo Dani Ceballos ayaa iyaguna fursado fiican ka khasaaray Real Madrid ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay gool iyo ay guusha ku raacday Real Madrid waana markii 14aad ay ku guuleystay koobkan iyo markii shanaad ay 10 sanadood gudahood ay qaadaan Real ayaa laga diiday gool qaybtii hore kadib markuu Karim Benzema dhaliyay kubad ahayd toogashada kaliya ay kooxdiisu samaysay qaybtii hore muran badan ayaa ka dhashay sababta goolkaasi loo diiday maadaama uu jiray ciyaartoy ka dambeeyay Karim Benzema calanwadaha ayaa markii Benzema goolka dhaliyay calanka taagay isagoo tilmaamay inay tahay offside oo xiddiga referee ka dambeeyay ciyaartoyda Liverpool ka hor intii aanu dhalin goolka hase yeeshee VAR oo soo dhex gashay go'aanka ayaa waxaa daqiiqada marba dhinaca ka eegaysay muuqaalka ciyaarta si loo hubiyo goolkaasi sax ahaa iyo in kale ugu dambeyntii waxay VAR ku waafaqday go'aanka calanwadaha waxaana sababta sharaxaad ka bixiyay khubarada ciyaaraha inkastoo ay taageerayaashu aad u fahmi waayeen taageerayaal tiro badan ayaa isku dayay si xoog ah ku soo galaan garoonka sida dhacday finalkii Euro 2020 ee garoonka Wembley ee sanadkii hore waxayna isku dhaceen ciidamada ammaanka waxaa la arkayay booliska iyo taageerayaal is eryanaya banaanka garoonka iyo kuwo badan oo doonaya inay si qasab ah ku soo jiraan albaabada iyagoo aan wax tigidh ah oo ay ciyaarta ku daawadaan aan haysan arrintan ayaa waxay dhibaato ku noqotay taageerayaasha iyo mas'uuliyiinta kale ee haystay tigidhka daawashada ee ahayd inay garoonka soo galaan madaxweynayaasha xiriirka kubadda cagta FIFA iyo UEFA oo ku sugnaa gudaha garoonka ay kaamirooyinka qabteen iyagoo madaxa ruuxaya oo ka walwalsan xaaladda koobka Championka ama European Champions Clubs Cup ee asalka ah lama siiyo kooxaha waxaana kaliya loogu dhibaa si ay isugu sawiraan oo ay muddo kooban soo haystaan sanadkii 1967 UEFA ayaa go'aamisay in la siiyo koobka asalka ah ee Champions kooxda reer Spain ee Real Madrid sanadkii 1960 kadib markii ay koobka ku guuleystay intii u dhaxaysay sanadihii 1956 ilaa 1960 laga soo bilaabo waqtigaasi 22 kooxood oo kala duwan ayaa ku soo guuleystay Championka koox kasta lama ogolaado inay haysan karto koobkan dhagaweynaha ee Championka hase yeeshee si ay kooxdu haysan karto koobkan waxay u baahan tahay inay si xiriir ah ugu guuleysto 5 jeer ama 3 sanadood oo isku xiga ay qaado waxaana kaliya sidaasi sameeyay kooxaha Real Madrid Ajax iyo Bayern Madrid ayaa ahayd kooxdii ugu horeysay ee la siiyay koobka asalka ah sanadkii 1967 waxaana ku xigtay kooxda Ajax sanadkii 1973 markii ay 3 sanadood oo isku xiga qaaday iyadoo waqtigaasi ay u ciyaarayeen Stefan iyo Johan Cruyff Barcelona ayaa noqotay kooxdii lixaad ee ku guuleystay 5 champion markii ay sanadkii 2015 final ku garaacday Juventus laakiin lama siinin koobka sababtoo ah sharcigu uma ogolaanayo sidoo kale Real Madrid ayaa la siinin koobka asalka markii ay si xiriir ah ugu guuleystay Championka
sanadihii 2016, 17 iyo 18. Manchester United ayaa heshay fursad fiican oo uga imaanaysa Chelsea, taasoo lagu soo waramayo inay ogolaatay inay hoos u dhigto qiimaha kubad burburiyaha reer France xilli uu tababaro Erik ten Hag uu doonayo inuu laacibkan ka dhigo saaxiibadiisa ugu horeeya xagaagan. N'Golo Kante oo qandaraaska Chelsea uu ka harsan yahay 1 sano oo kaliya ay Blues ka walacsan tahay mustaqbalkiisa, waxayna ka baqaysaa inuu si xor ah uga tago xagaaga dambe sida ay hadda sameeyeen Antonio Rudiger iyo Andreas Christensen. Manchester United ayaa la rumaysan yahay inuu ka liito khadka dambe ee kubad burburiyaha oo aanay ku haysan ciyaartoy dabiici ah oo shaqadaasi qaban karaya, iyadoo uu dhawaan Matic shaaciyay inuu ka tagayo xagaagan. Wararkeena ciyaar waa naga intaasi, intaan ku kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.